qolkii dugsiga lagu galay hadda labadii shifti waa wuxuu helay inuu play station haya marka dawladdu waxaa fiicnaada marka qodob la sameeyo in survey loo baxo mas-uul ah qodobka side effect baa keenay in la xaqiiqa hadday sameeyaan lacagta play stationadii oo saf loogu jiro ilmiyo cadaan furmin cayaar banaanka waxyaabahaas oo dhan oo waxyaabaha aan ka dhacnay labada isbuucaan tii hore ku noqon maayo oo horar looga hadlay dhibkii ay leedahay marka waxaan ka codsanaynaa dadka ay khusayso arrinta inaan xirnaashin una sii socon waxa la wixii awaamiira oo tala caafimaad ay qaataan iskuullada sida kala fogaanshaha face mask in la xirto waxyaabahaas oo dhan xataa in shiftiyada la bariyo waxbarashada intaas oo dhan wixii kala waa qaadanayna keliya waxaan nooceynta oo in halkaan isugu nimid inaan muujino labadan isbuuc oo hadda gebagabada dhibka dhaqeeya bis kii hore ugu noqonayna hadda tantaagan inaan dib loo kulanay rafaad badan uu jiro horumareed badan uu jiro intaasna waxaan mar walba ima saddexaad dadkii ugu horreeyay ay ka hadleen raadiyada ummadda u qaadan kara waxbarashada in sii ceebnaa codsigeena loo tixgeliyey idinku maaqsan wanaagsan asalaamu calaykum midaas waxay tahay maadaama aan nahay dad muslimiina oo ilaahay subxaana watacaala uu siiyey wax ummadaha kale ee ummadda muslimiinta waxay ummadaha kale ay tahay iyadoo ilaahay siiyey ummadaha muslimiinta usii ay haysanaa oo nicmo wax noo laagay isijin ah nicmadaas waa nicmada islaamku ah marka taa ayada maadaama aan nahay dad saas ah oo ilaahay subxaana watacaala keligiisa caabudayo ayaa waxaa laga rabaa taqwa allahi tacaala ilaahay cabsidiisa ayaa waxaan farayaa naftayda iyo naftiisaba taasna waa meesha keliya ah badbaadada leh meesha badbaadada leh oo loo baqan karo oo qof maanta haddii kuu baqdaayo meesha uu baqan karo oo qof fudud waa meesha ayada qodobka waxaa kulli baaban asagana kala qaadashada ilaahay kala qaadashada ilaahay ayaa kulli baaban oo asagana oo aan maanta asagana wada ognahay laakiin baraarug ayaa rudiga kala qaadashada وفي أسئلة آجي أنا
laakiin kala jaartooda iyo dagaal noqon mid oo asbaabtii iyo waxyaabihii laga baahnaa adoon samayn oo ilaahay kala saaraya kaa noqotaa oo maxay tahay ilaahay wuxuu leeyahay waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbuh qofka ilaahay kala saarta asaa ku filan marka haddii aad ilaahay ku diidta asaa kugu filan laakiin waa inaad la imaataa asbaabta ilaahay si aad waxaan rabaa caafimaad daktarkii cudurkaa yaqaanin ma aada hadaad tiraadid inaan ceesho cunaan rabaa dadkayga raadinna ilaanka saaranta waxaa ola jeedaa cudurkan ilaahi subxaana watacaala ayaa keenay wuxuu kamid yahay ciidamada ilaahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ciidanka ilaahay bashkiimaa laga yaqaan arrintaas waxaa sababa marka in aan ilaahi subxaana watacaala karbaas waaye canaan lagu socoto waaye canaankaas waxaa looga dheeraan karaa ilaa ilaahi subxaana watacaala u laabto qof kastoo naga mida marka ilaahay u laabto oo gacmaha kor u taago ilaahay waa qayb waa إذا سألك عبادي إني عليها دي أنا هي الحكم قدودي له أقول يستوى قلوب مكة أنت هذا هي أكيد بينها يبقى كلا هم مسلمين كلا كلا وهو يشوف إلهي سبحانه وتعالى عن اللهم فكان إلهي اللهم حفظها وقت السفر منه هو النفس السوق هكذا قايد على عمدان في ومضي سومالي وكل شغل حاجة للبلد وصلوا خوف في عرسي قلوا إلى الفراغ كان هاتف فقط عايزين لما عربيت قلوا كان وقتها كثير ليه ربنا هو كرباش كان الصميم هذا عناك إلهي نطلب منها إلهي نطلب منها عناك وحكي markii anaga nagala waayay wadadii shoofneedkii hagaagta nagalarkii nagala waayay ayuu ilaahi subxaana watacaala karbaashaas waan waxa ugu yar waa waxa ugu yar oo canaan waa waxa ugu yar oo canaan waa ilaahi wuxuu ugu yiraa in dhulka inta aan ku taagana nala jarabo wuxuu kale ugu karaa badaan derisa nala inuu ugu soo wuxuu kale ugu karaa ilaahi gabal dad cirka kaba inuu ugu soo galo ugu yiraa tani waa canayn canaanta marka wuxuu u baahan tahay inaan annaga isu faahno aan gadaal isu fiirino oo dhaahno oo wixii naga qaldan aan saxo marka walaalayaal intaas waxa waaye ilaahi subxaana watacaala ayaa nagu jeclaanaya markaan u laabano qowlkaan iyo dhammaan iyo cabsidii jirtani way baabaysaa marka in looga baxay waxaan u salaamana marka warkii iyo hadafkii meesha loo yimid وذكر لو كان كمان شوف إنسان روح ده إنسان كمان صحافة وحنا غيرها أيوة وشيء أيوة وشيء ما شدت كده ده وين بعد تعليمنا يجسوا لينا باش ما بيرجع وأكمل دارنا إن شاء الله ولكن سيدا الله سبحانه وتعالى أقوله وبقى حالة التطبيق بعض الدنيا تريدون لكن عارف أنا دريت في قالت في واحد بروح سيدا الله سبحانه وتعالى مع مليار لو كنت بعمل كذا لا معروف كذا إلى أول شيء كبرين أرضي لو أكبر كلامنا بسم الله أرضي إلى كسي بدين معلمين Somalia كهول الشرق حاليا لما تميل في حاجين هذه طبعا يكتب براند الكوري يتمنى أو معلمين ودوات نحن جامعة ضغطين كبيرة مجال وشوفنا أكثر مرة على هاي وعن شوف أنك يعني وعمل حقوق النايمين في يوم الله نقطع أمين لي أهم كأمر مسلمين الله نقطع وما قام كان الله نقطع إذا كفاعل سيدنا الله عليه وسلم وأكيد دولة أي كل واحد يسدح بشيء عاش
لابد الوقت يكون إلا هكذا وفرشة هذا بالله ما هي هذا سنة في ورمي كرنوب لو ما تسديد الدول جديد أي أصلا كرنوب واضح عرفنا دول غير وقاعد في كرة أي بابلياش المدارس وفرشة الجامعة ولو هي كسر كبلاهي سلا أكبر هي كلها تسديد تاني أفضل مسين كبلا أيها المدرسة أبدي تربضا وكنت حرتاك دفر هو يوم الواجب أيضا ما يفرق في المرجع بعض فرشنا طلب نفسي أي سنة في هوري أهم بواب حسبايا لسكن واقع سنة كان هذا سيدي هذا حلقة أولاد القانون ماشى كان لا يشاء الرحمن ربنا كهذا شيء هدي أنا مع بعض فرشنا قولك برانك هدي أنا مع أنك رمنا ندور الكشف إلى علمك فيقفك بوشدة يعافمات كعضيدة يوالدين بريولة القوات المدنية سيدوك وعاد بريولة القوات نوع سجنة إن الجهل يقدر يفنو عن بوشدة وفر مركا أبقى رئيسه ووين ماشي صلاة وما لو حينا ساكن الله حتى يتركون وقال ولد مركا حكا وقتنا رأياه سيدة عن قدر التقسيم معه صح معها إن أرض عدد قال لك الجامعة الإسكولات يقرأ وكبر داعي بس عقل جراح صحنا معها إنسان هراء مدارس الإسكولات يقصير وشقيني وقصي شقيني وحنوك وقصي مالي مركب عن سويت لدينا يا إن كشقيني نقول إن الفيقوك يعافمات بالقبض بشدة عن كشقيني مدارس الإسكولات أنجونا وعلي جريكا بالله مرحلة البروسيجر اللي مراي كورتك عقولك عن قادم كلاس راديو أفرت عن كركور لا يحسد عن غيرنا الله هو غيرنا هدي سكولك وشقينا هل جري لا بجري يسدح جري المكان هدي الإحساء على الشقيد رسل إحساء على المسوق هو سعر ضلي سكولك أو إنه هذا كان بوشة الدولة الصومالية نحن عطينا أنت كقاعد مقصود الشيء معي داخل ولي محافظ السلاح دور الأيربورت ساق دور من الدكتور يا شقينة سوريا ضوابين كلا جرحت يا طفران ضوابين بلوك الوكيل على تفتيش في كابلات الشقينة اللي إذا السند والإفاضة وحصلت إليها لحظة عقل المنطقة على أنها أنت كبعد مسيد القارة كنه وعن أكثر إن برشلة المسؤول اللي أعطيه المعلمين دولة الصوماليين أي صنبا يهمين حقوق دلواتن كاسكون مع الأغلب يهمين وقلنا هي تمدللة دولة كجرتا كدولة بريسة مبازة تقول هاي المعلم يمسك وفعله سيدا درابي أصلا إنا ومنين حقوق دلواتن كاسكون معلم إيو إن كبر الأولي يروح أرضي أو صومالي وكبرت حقوقه إنا على ومنين وأدوتين سنة كوري أجر داموني كدباتوين كنجر جاري الناشات بسير هذا نوتي مو حساسي سنة أيام أنا في الوقت مركا وعارف أنا ممكن وصل دولي أنا وصل عاصمات الفيضان والنمي لا هند تعليمهم والنمي وعارف مركا أنا لقد شيء بس خمس سنين أنقول وكي جواب بدي أجي هذا ما تندي وعارف نشوف في برنامج كان الشغل وقرية وياك الدنيا الله مع سكان راسي وسود الدنيا ممكن وياك عشان أنا بسوق وجبينه وأنا رايح الدنيا يبغى كبار كبيرة ورنتي سكر منها ليه وأنا أنتي كنت ماشى ما أنت وقت قبضة من واحد ولا تكسر شقي إن لم بدايه وحدة جيرتان سلجرك سكولة ورشة دولة كبراني أسأل على جزاك الله خير هذا أمة تنتهي إن شاء الله بعد نروح بسيطة ده الدنيا ما يحصل له يبدو يبغينك سباق الله ما تنتهي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
sidii waxbarashadu wixii ugu bilaabanayaan isugu oo aan kala soo jeedinayno heeraha dowladda ay khusayso ayaa waxaa muddada sanadka ka hor ay soo saartay dowladda federaalka looga nabadgeliyay waxyeelada cudurka waxaa si dhab ah u fuliyey una hoggaansamay baxda waxbarashada iyadoo goobaha waxbarashada xikaayada muddaafka bilowda sanadusiyadkii tagay ee 2019-2020 xirnaanshihii dugsiyada ee cudurka COVID-19 awgiis waxaa laga dhaxlay kow in ay arday badan ku dhacaan imtixaanka shahaadada dugsiga sare labo in inta badan ardaydaas dhacday aysan dib ugu soo noqon waxbarashada oo ay ka saarayeen taasoo saameyn ku yeelatay noloshooda iyo midda waalidkii shiisanayay mustaqbalkooda saddex in ay xirnaan ku dhawaad 100 dugsi oo ku yaal gobolka banaadir afar inay saamaysay nolosha ku dhawaad 100 oo qofood oo ku nool gobolka banaadir kuwaasoo isugu jira maamulayaal warayaal shaqaale iyo inta ay mas-uuliyadoodu saaran tahay marka la eego saamaynta tagay ee sanadusiyadkii tegay ee ay xirnaanshaha dugsiyadu ku yeelatay waxbarashada iyo baxda waxbarashada waxaa noo muuqanaya in sanadusiyadkaana ka maqnaanshaha ardayda indaafka waxbarashada sababi karto dhibaatooyin ay ka mid yihiin kow tiro badan oo arday Soomaaliyeed oo ka saartay waxbarashada labo adeegsi darooga iyo muxaadaraad saddex tahriib afar burcadnimo iyo qalab halqagelin amniga shan dugsiyada xidhna iyo deegaanada ay ku yaaleen oo ay saameyn dhinaca tacliinta ku yeelato saameyn dhaqaale iyo mid nololeed dhalinteena oo aan u diyaarsanayn ku nagaanshaha guryaha waxa ay sabab ku noqon kartaa in banaanada aan taxadarka uusan ka jirin cudurka ku haleelo midowga dugsiyada gobolka banaadir waxa uu ku baaqayaa madaxda ciyaaraha waxbarashada ee aan kor ku soo xusnay in muddada 2 toddobaad ah ee ku bilaabanaysa 3 bishii saddexaad 2021 kuna eg 17 bishii saddexaad 2022 ee ay dowladda federaalka shaacisay xirnaanshaha goobaha waxbarashada aan waqti kale lagu kordhin maadaama dowladooyin hore laga dhaxlay xirnaanshaha goobaha waxbarashada sidaas darteed ayaa soo jeedinaynaa beddelka ciidda dugsiyada in la hirgeliyo qodobada soo socda kow in dugsiyadu qaataan dhammaan xadar iyo kahortag ah ee looga gaashaamana cudurka COVID-19 sida iyo iska saaridda nadaafadda goobaha waxbarashada ka in xarumaha waxbarashada laga helo agabka jeedka dila oo ay adeegsadaan dhammaan maamulka barayaasha ardayda iyo shaqaalaha xarunta in xarumaha waxbarashada laga helo haamaha faraxalka ama meelo loo suntay faraxalka iyo waajibkamidida qaadashada ardayda waxbedelka si kudeegaar ah jadwaladii iyo waqtiyadii caadiga ahaa ee shaqada si loo yareeyo shaqada ardayda iyo soo guraysa dugsiga waana dhowro kala fogaanshaha ardayda inta tulinta fariimaha gaarka ah ee looga hortagayo faafinta dadka COVID-19 joogtaynta wacyigelinta ka hortagga cudurka COVID-19 iyo soo kordhinta xiso toddobaadla ah oo looga hadlayo ka hortagga iyo waxyeelada cudurka dilaaga ah ee COVID-19 oo ardaydu qaadanayaan qaadashada tallaalka loogu talagalay ka hortagga cudurka COVID-19 ee dhawaan dalka yimid labo in guddiga qaran ee qaabilsan cudurka COVID-19 ay booqdaan xarumaha waxbarashada kula kormeeraan fulinta qodobada kor ku xusan ugu dambeyn Allah subxaanahu wa tacaala ayaan ka baryaynaa in cudurkan khatarta ah waxyeeladiisa ka badbaadiyo dalkeena iyo dunida oo idinba